السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. معلم وناكسن isku soo noqod wanaagsan. Waxaan rajeynayaa dhamaantiin inaad caafimaad qabtaan. Soo dhawaada mar kale iyo koorsadeenii farmakolojiga casharkii 11aad. Casharka kan maanta waxaynu ku baran doonaa daaweyn inta badan aad inoo soo weydiineyseen inaynu ka soo hadalno kuwaas oo ah kuwa ugu caansan marka laga hadlayo daawooyinka ee ah cell wall inhibitorska. Cell wall inhibitorska si kala hadaynu dhigno waxaa loo yaqaanaa antibioticska. Daawooyinkaas ayaynu qaadan doonaa insha Allah. Waxaan rajeynayaa ilaa dhamaantii casharkan intaynu ka gaari doono inaad la socon doontiin biidhnillaahi jalla wa ala. وهران هدينو كبلو نعشر كينا مانتا قايحيدا ay leedahay antibioticska waa daawooyin loo isticmaalo inta badan ba in lagu dilo ama lagu joojiyo koritaanka microorganismska nooleyaasha loo yaqaano qaasatan bakteeriyada ha noqoto gram positive ama gram negative bacteria ba beta lactam antibioticska ama cell wall inhibitorska waxaa loo qaybiyaa 5 qaybood oo kala ah penicillinis, cephalosporins, carbapenemus, monobactamus. qaybta shanaad ee ugu dambaysa ayaa ah beta-lactamase inhibitors. shantani qaybood ayaa ugu waaweyn marka laga hadlayo beta-lactamase antibioticska ama guud ahaanba antibioticska qaybaha ugu muhiimsan ee loo qaybiyo. markani hadaynu sii kurgalno qeexida ay leedahay penicilliniska ama daawooyinkan loo yaqaano penicilliniska waa daawooyin kooxa ka tirsan daawooyinkan loo yaqaano antibiotiga kuwaas oo inta badan ba loo isticmaalo in lagu daaweeyo noocyada kala duwan ee infectionada ay keenaan bakteeriyada qaasatan labada nooc ee kala ah gram positive bacteria iyo gram negative bacteriadaba. daawooyinka kani waa kuwa ugu caansan looguna isticmaalka badan yahay marka loo fiiriyo qaybaha kale ee antibioticska. markaan hadaynu ka hadalno qaabka daawooyinkan ay u shaqeeyaan daawooyinkan waxay fargelin ku sameeyaan talaabada ugu dambaysa ee unuga gidaarkiisa lagu sameeyo iyagoo fargelintaasi u sameyn doona saddexdaani midkood. marka ugu horeysa in ay howlgab ka dhigaan penicillin binding protein kaasoo inta badan door weyn ku lahaa sameynta gidaarka unugaasi. qodobka labaad ayaa noqon doona in ay meesha ka saaraan soo deynta enzymeka loo yaqaano transpeptidase kaasoo door muhiima ku lahaa isqabsiga ama cross linkage-ka ka dhaxeeya sokortii iyo peptide chain-kiiba ee uu ka sameysnaa gidaarka unuga bakteeriyada. qodobka saddexaad ee waxa uu noqon doonaa soo saaridda autolysinis. autolysinis waa enzymyo ay leeyihiin bakteeriyada qaar sida gram positive cocci oo kale waxay leedahay enzyme ka noocani kaasoo inta badan loo adeegsado in lagu burburiyo gidaarka unuga bakteeriyada marka uu noqdo mid duugooba ama uu celidoobaba. haddii ay dhacdo marka in penicillins ay fududeyso soo deynta enzymeka kani iyadoo aan waqtigiisa la gaarin ama ay bakteeriyada ma soo sameyn waxay fududeyn doontaa in ay burburto gidaarkii bakteeriyada halkaasina ay ku dhacdoba in ay meesha ku dhimato ama ay koritaankeediiba joogsato bakteeriyadii. waxaan filayaa in si fiican aad u fahanteen qaybta tani ee mechanism of actionka ama qaabka ay u shaqeeyaan daawooyinkani loo yaqaano penicilliniska. markaynu ka hadalno classificationka ama inta loo qaybiyo penicilliniska daawooyinkani waxaa loo qaybiyaa ilaa 6 qaybood oo kala ah daawooyin loo yaqaano natural penicillins iyo amino penicillins iyo carboxy penicillins irido penicillins penicillins inhibitor combination iyo nooc lixaad oo isagana loo yaqaano beta-lactamase resistance penicillins. 6dani ayaa ah ama loo kooxeeyaaba inay yihiin classificationada uu kala baxo ama qaybaha uu kala bixi karo daawooyinkani loo yaqaano ama groupkani ka tirsan antibioticska ee loo yaqaano penicilliniska. lixda qaybood ee penicilliniska haddii aynu sii kala qaadno natural penicillins waxaa soo gala aqueous penicillin G, penicillin G, penicillin VK halka
Aminopenicillins daawooyinka ugu caansan ee soo gala ay kala yihiin ampicillin, amoxicillin. Carboxypenicillins waxaa soo gala carnitine iyo ticarcillin. Iridopenicillinska daawooyinka soo gala waxaa loo yaqaanaa methicillin, piperacillin, acetylacillin. Penicillins inhibitory combination waxaa iyagana ka mid ah daawooyinka soo gala ampicillin ay la socoto sulbactam, ticarcillin ay la socoto clavulanate, piperacillin oo ay la jirto tazobactam, iyo amoxicillin oo ay la jirto clavulanate. Nooca ugu dambeeya ama qaybta lixaad haddaynu fiirino kooxahan penicillinska waxaa soo gala iyagana methicillin, neficillin, oxacillin, coloxacillin, dicloxacillin. Halkani markaynu ka hadlayno marka waxaa jirto ama soo gashaba qayb loo yaqaano ama daaweyn loo yaqaano anti-pseudomonal penicillins. Daawooyinkaasi waxay yihiin marka la isku daro carboxypenicillins iyo iridopenicillinska waxaa loo yaqaanaa labadaasi daawo waxaa loo yaqaanaa anti-pseudomonal penicillins. Lixda qaybood ee penicillinska iyo dhammaan daawooyinka soo hoosgala waxaan filayaa inaad si fiican u fahanteen marka kale. Aynu u weecno marka kale qaybaha kale. Qofku marka uu qaato daawooyinkani waxa uu develop garayn karaa shuban, kor cuncun ama allergy, iyo dawaqaad uu dareemo mararka qaar, iyo ugu dambeyn inuu qofka ka sumoobo dhiiggiisa oo loo yaqaano hematological toxicity. Ugu dambeynna waxaa laga yaabaa inuu qofka uu develop gareeyo nephritis, taasoo ah qofka kilihiisa inay develop gareeyaan inflammation ama caabuqba uu ku dhaco kilihii. Intan ayaa ugu waaweyn marka laga hadlayo saameynta ka dhalan karta isticmaalka daawooyinkani loo yaqaano penicillinska. Waxaan halkani kusoo afmeeraynaa casharkeenan maanta. Casharka xigeenteenu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum.